waa qiso la yaab iyo argagax wadata waxayna ku dhacday wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamed wuxuuna ku nool yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho sariiq ay u dhigeen hablo Soomaaliyeed isla markaasna waxay ka duubeen muuqaal isla markaana waxay ku xujeen inuu bixiyo lacag aad u fara badan haddii uu bixin waayana inay muuqaalkaasi ku faafin doonaan baraha bulshada wiilkan oo murugaysan ayaa la soo wadaagay qisadani fadlan intaan u gudagalin qisadan waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like gareyso sidoo kalena subscribe raado channelka oo nagu soo biirto mahadsanid qisadan xanuunka badan ayaa waxay ku dhacday wiil lagu magacaabo Maxamed kuna nool magaalada caasimadda ee Muqdisho Maxamed ayaa waxay isbarteen gabar lagu magacaabo Fartuun waxayna isku barteen maalin Jimcaha xeebta Liido oo ah meel ay kumanaan kun oo qof maalin walba oo Jimcaha maalmaha fasaxa ay u soo tamaastagaan isla markaasna ay ku dabaashaan nolol iyo sidoo kale farxad iyo reereen aad u qurux badan ay halkaas ku qaataan Liido oo ah meel lagu dalxiisto isla markaasna lagu raaxaysto ayaa wiilkan waxay isku barteen gabadhan lagu magacaabo Fartuun iyo Maxamed ayaa run ahaantii markii ay saarkeen waxa ay isku dhoola cadeeyeen isla markaasna waxay soo jiidatay Maxamed quruxda iyo sidoo kale dhoola cadeyntii u muujinaysa Fartuun balse muusan ogeyn dhoola cadeyntaas inay ku noqon doonto mar madow oo noloshiisa ku taala Fartuun iyo Maxamed ayaa intaas kadib waxa dhaxmaray wada hadal waxaana ay kala qorteen taleefan lambaradooda Fartuun ayaa maalin walba u tagtay xeebta Liido si ay u barato wiil aad u fara badan isla markaasna ugu dambeyntii mustaqbalkooda si ay mugdi u geliso Fartuun ayaa Maxamed waxay siisay lambarkeeda Maxamed iyo Fartuun intaas kadib waxay wada qaateen wada sheekaysi ku aadan dhinaca baraha bulshada gaar ahaan waxay si rasmi ah xiriir jacayl uga bilaabeen bartooda WhatsApp-ka ee lambarada ay kala qorteen intaas kadib Maxamed iyo Fartuun ayaa waxay waaye jaceylba soo wadaan waxay Fartuun ka codsatay inay Maxamed wada kulmaan Maxamed oo kulanka Fartuun aad ugu faraxsanaa isla markiiba si degdeg u aqbalay codsiga ka yimid Fartuun ayaa u sheegtay in gurigeeda maanta uu cidlayaa isla markaasna cid joogtay aysan jirin isla markaana ay jeceshahay inay halkaasi waqti ku wada qaataan Maxamed oo ah wiil dhalinyaro ah isla markiiba taxi ka soo qabsaday ama gaariyaasha loo yaqaan biilka ka soo qabsaday warshada baastada waxaana uu si degdeg ku yimaaday guriga gabadhan oo ku yaalay degmada Madiina ee gobolka Banaadir waxaana intaas kadib halkaasi ay ku kulmeen Fartuun iyo Maxamed Fartuun ayaa markuu gaariga ka soo degay Maxamed waxay u soo kaxaysay dhinaca gurigeeda oo ku yaala degmadaasi waxaana intaas kadib Maxamed la geliyay guriga waxaana loo sii diyaariyay wax loogu sii talagalay in la siiyo oo ka mid yihiin cunto biyo iyo wax la mid ah oo ku aadan soo dhaweynta Maxamed intaas kadib Maxamed ayaa Fartuun ayaa intaas kadib waxay Maxamed u keentay macawiis si uu u xirto Maxamed ayaa surwaalkiisa ka bixiyay isla markaana wuxuu xirtay macawiistii loo keenay intaas kadib waxay bilaabeen wada sheekaysi sidoo kale inay isxog wareystaan Fartuun waxa guriga ugu jirta kaamiro qarsoon oo ah oo la geliyay meel aanaysan arki karin isla markaasna uu Maxamed waxba ka fiirin karin waxaana uu dambeyntii Fartuun la gashay gacmaha Maxamedna sheedaanka ayaa qaaday oo wuxuu u galmooday Fartuun balse ma ogeyn in muuqaal laga duubayo isla markaasna lagu rikaateen doono mustaqbalkiisa dambe guriga ay degan tahay Fartuun waxa weeye guri ay kiraan u kireysatay waxayna isla markiiba ka ama bixi doontaa gurigaasi waxayna magaalada caasimadda ee Muqdisho ka gali doontaa mid ka mid ah guryaha ku yaala sababtoo ah Maxamed ma garan doono hadduu muuqaalkaas lagu rikaateeyo meel uu Fartuun ka soo doono ugu dambeynta wadadaal waxaan warkaan idinku raajinay Maxamed ayaa muuqaalkii laga duubay isla markaana waxa guriga lagu soo sigootiyay si farxad iyo reereen ka muuqata balse markuu guriga tagay ayaa waxa habeenkii loo soo diray muuqaal ka naxiyay run ahaantii isaga waxa la tusay sawir uu qaawan yahay isla markaasna ay muuqdaan cawradiisa Maxamed ayaa aad u argagaxay wax isla markaasna soo foosartay murugaad xoog badan isla markiiba Fartuun ayaa u soo dirtay cod isla markaasna qoraal wata waxayna u sheegtay in ay muuqaalkaasi baraha bulshada ku faafin doono haddii uu bixin waayo lacag ay ka codsato oo qiimaheeda ahaa $300 Mareykanka ah Maxamed ayaa run ahaantii aad u yaabay una naxay mana ahayn lacag $300 meel uu ka keeno balse jawaab degdeg ayuu siiyay walaalay wuxuuna u qoray waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa in inta lacagta kaaga soo raadinayo inaad muuqaalkaasi faafin balse Fartuun oo taqaana sida looga ganacsado muuqaalada iyo sidoo kale sida loo rakaateeyo ragga ayaa isla markiiba waxay u sheegtay in 24 saac uu lacagtaas ku soo bixin waayo oo muuqaalka ka daawan doono baraha bulshada iyo sidoo kale guruubyada ka jira social media messengerka WhatsApp iyo waxyaalaha la midka ah Maxamed oo aad u murugaysan ayaa waxa guriga ku noolaa laga dareemay inuu Maxamed isbedelay waxaana qof kasta guriga Maxamed kula noolaa oo waalidkiisa ka mid ah iyo asxaabtiisa walaaladiisa ay weydiiyeen waxa ku dhacay balse marnaba uu sheegin waxaana uu sheegay inuu caafimaad qabo isla markaasna isan wax dhib haysan
intaasi kadib maxamed ayaa waxa uu go'aansaday inuu ciri dhulka raadiyo Zaynab isla markaana wuxuu maalin walba si toos ah u tagi jiray xeebta Liido isagoo baadigoobka Fartuun ku jira isla markaasna jooga xeebta Liido ayaa waxa uu soo dhacay lambar waana Fartuun oo ku sugan ayadana xeebta waxay u sheegtay maxamed inay arkayso isla markaasna uu si degdeg ah xeebta uga tago haddii uu ka tagi waayna inay saacadaas ugu horeysay soo dhigi doonto muuqaalkaasi maxamed oo aad u naxay isla markaasna aad u murugooday ayaa yidhi fadlan raalli ahow kaamaana soo doonno halkan ee aniga danahayga ayaan u imaaday qof ayaan ku ballansanahay halkan ee fadlan ixtiraam qoraalkaaga oo kale ayaan ahee isla markiiba waxay u sheegtay inuu dhaqso kaga taga halkaasi waxayna u sheegtay in halkaasi hadduu ka tagi waayo loo keeni doono cid xirta isla markaasna ay qarash ku bixin doonto in xabsiga la geeyo maxamed oo aad u walwalsanaya isla markiiba halkaas kaga cararay waxaana uu aaday xaafadda uu ka degnaa magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ahayd halka loo yaqaan warshada baastada oo ah halka isgoyska Hirwa ama warshada baastada eerida oo taqaanidba oo ah degmada Hirwa ugu dambeyntii daawadayaal maxamed ayaa waxa uu markuu xaafadooda tagay waxaa soo wajahday maskax wareer iyo sidoo kale fikir joogto ah wuxuu sameeyay ayuuna garan waayay maxamed ayaa intaas kadib wuxuu wacay mid ka mid ah eheladiisa oo ku sugan wadanka Mareykanka wuxuuna u sheegay inuu rabo inuu iibsado mooto bajaaj lacag ahaan ay ka dhiman tahay lacag $300 waxaana uu sii dhacsay in lacagtaas si degdeg ugu baahan yahay maadaama uu u sheegay in mootadaasi ay tahay mid raqiis ah uu rabin in jaaniskaasi uu dhaafo ninkii ayaa si degdeg ah lacagta ugu soo diray maxamed waxaana lacagtaasi loo soo dhigay barta xawaalada loo yaqaan Taj waxaana uu soo qaatay lacagtii isla markiiba wuxuu si degdeg u wacay Fartuun waxaana uu sheegay in lacagtaasi uu hayo isla markaasna ay kaashaan ugu taalo sarifle ku yaala bakaaraha ee ay ka qaadato waxaana ay maxamed u sheegtay in lacagtaasi ay marnaba qaadanayn isla markaasna ay soo doonanayn waxayna u sheegtay oo kale in lacagtaas uu ka soo dhigay EFC Plus isla markaana ay lambar u soo yeerin doonto maxamed ayaa intaasi kadib wuxuu la tashtay mid ka mid ah dhalinyarada asxaabtiisa ah waxaana wiilkaasi uu soo bandhigay qorshe sariiq loogu dhigi karo isla markaasna lagu qaban karo qoftan caadaysatay ceebeynta wiilasha waxaana ay sariiqdaasi bilaabeen si ay ugu dhigaan maadaama ay haddii ay qoftan lacagta qaadato ee lambarada bedelan karto isla markaasna ay la weyn karo intaasi kadib maxamed iyo wiilka ay saaxiibada hayeen ayaa bilaabay qorshihii sariiqda ah ee loo dhigayay gabadhan maadaama uu ka cabsi qabay in haddii ay muuqaalkaasi aduu lacagta siiyay in mar labaad ku soo rogaal celiso isla markaasna ay muuqaalkaasi ka faafiso isla saacadaasi waxay go'aamiyeen isla markaasna ay dhigeen sariiq aad u weyn oo lagu qabanayo Fartuun intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa maanta qisadii aan uga hadlaynay wiilkaas laga duubay muuqaalka isla markaasna lacagta lagu ragaateeyay fadlan haddii aad soo gaartay xilligan isla markaasna muuqaalka daawanayso ku soo qor magaca si aan u aragno dadka baahida u qaba inaan qisadan qaybta labaad u soo gudbidno ku soo qor barta commentiga part 2 si aan qisadani qaybteeda labaad si degdeg ah u soo galino sidoo kale muuqaalkan la garee si uu gaaro kumanaan kun qof oo nagu soo biiro subscribe dhaho mahadsanid